كوريا أحبابتنا aan jecelnahay halka aad naga daawanaysaan waa bejajka shabakatul muxibiin iyo jamaacatu sheekh maxamuud godone waxaa maalmahan ka socday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya oo lagu soo qatimay siyaaradii 122 ee caalimkii Soomaaliyeed Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi oo loo yaqaano Sheekh Cabdiraxmaan Suufi ahna caalimu banaadir waxaa siyaarada ka soo qayb galay mashaayikh fara badan waxaa halkaasi ka hadlay mashaayikhda ka soo qayb gashay qaar ka mid ah sida wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Sheekh Cumar Cali Roble Sheekh Jeylaani Nuur Iikar Sheekh Suufi Sheekh Cabduqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Somow iyo Sheekh Cali Dheere الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن لله عبادا ليسوا من الأنبياء ولا من الشهداء إذا كان يوم القيامة لهم منابر من نور يغبضهم الأنبياء وأن يكونوا كمثلهم قال رجل من الأعراب من هم يا رسول الله قال الرجال جاءوا من بلدانهم شتى وقبيلتهم شتى ليست بينهم قرابة يتواصلون ولا مال يتبادلون بل يتحابون في دعة الله تعالى وحان رجينا قولداس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وزيرك الدين توقافته حلبانada federaalka xildhibaanada dowlad goboleedyada marti sharafka culimada duruqa suufiya oo meesha isugu timid kulli waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam waqti oo xiriiri ah شيخ تاريخ ديسا وحنوه في كتابه العزيز ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة والصلاة والسلام على سيد الكونين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الغائل المرء مع من أحب إخوة العزاء وحمد إسكاله إلهي هل كان كل مي حضر الشيخين الشيخ عبد الرحمن الصوفي الله جبريل بويرا يا هو وعيا مركز وحوليه حديث هو حديث صحيح البخاري مسلم با أنا وحان جعل فلان هبل أذيقنا جعله مركا أو جعلاده أيوه حوليه صمد أهل كذا أوجيسي إلهي وحو جعلاضي فلان جعلاضه